رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه جليل كهاية بيد الله يكون امتحامي لو شاقين لامتحامي يولي من يسك الصبري عجيب beertii nebigu uu ku jiray buu albaabka loo garaacay nebiga Abu Musa al-Ash'ari baa irid taagnaa markaas uu nebigu u sheegay yaa rasuul albaabka waxa garaacay Abu Bakar markaas uu nebigu soo gal ka Abu Bakar jannada ugu bishaaree hadana Abu Musa halkii buu fadhiistay hadana waa la garaacay waayo waa Umar waa ku soo idan qaadiye u kaadi yaa rasuul Umar baa albaabka jooga soo gal ka jannada ugu bishaaree hadana waa la garaacay yaa rasuul waayo waa Usmaan baa albaabka taagan u bishaaree janno balaayaa siibi doontana u bishaaree buu rasuulku yiri markii loo sheegay in nabigu jannada uu kugu bishaareynaya adduunyadana balaayo iyo masiibo kugu dhici doonta wuxuu ku jawaabay Allahul musta'an Allahul dad safka hore ku wada tukataan ama mid meelaha iska barjayo qaraabadiina hadduu laba jeer ku yiraahdo warniyo manaan baan kugu arkado baawar kula qalima ka waran waxaad oran waraado noloshidaad ka xuntay daay karqabaad Soomaa wad ka raabsan waa mid meelaha iska barjayo qaafila oo masaajidada iyo diinta Ilaahay cilaaqo la lahayn hadduu laba jeer riixun ku sheegaa saa u nixo qofsada u qarqariyo ruuxba ku dhacaya Muhammad alayhi salatu wassalam saadiq wal masduq ba u sheegaya inuu balaaya adduunyada ku asiibi doonto waxa uu leeyahay hadana Allahul musta'an وهذه فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سيدة نساء هذه الأمة في الجنة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ونبي قد حفظيه أي فاطمة النبي أصوغ شيء ويكفر ستي ويدنكتي ودنكتي النبي عليه الصلاة والسلام من انتسي مرقاسو كالي فاطمة يرمى كو شاقي قلت وحو شاقي وعيد الوان للما قد فاطمة عائشة أركيسة أم المؤمنين رضي الله عنها مرقاسو النبي يقول هذا كالي فاطمة ركلا كو شاقي قلت وحكا له شاقي إسلام ركيبة فاطمة هذا هو يقص الشيء فرح عليه عائشة مالين دم بقوي يدي قدر أرنتي مالين تادي أباها ندح مرتي إن مرنا كويدي مرنا تكفر حدا إيشك مرقابة هو يكون شيء ما يصير تاس أنا جي النبي جي نقد حسوا كوما شيء يو ولكن عائشة ما يهالمامنة مرقي النبي عليه الصلاة والسلام الدوية وكينتقالي أي مالين يدي كتري ما دام النبي الدوية كينتقالي سرتي هذه النبي جي نقد حسوا ما عندنا شيء توي كوب بنانته إيشك مرقاسة هذا وأكون شيء يا أرنك سرت هو الرئيس كل المية وحي هاي وعويشة جريدي سويشة إنه دود هاي لأن وان هو يبيتين وإنت دوار كيسين سرت الله بعض ويشة كفر حي وحي بحي ويقول يرها وين فاطمة يا أمس ميانا درالك وحين هوينك أمة النبي محمد الجنة قلايا قبل وجود رجس الرئيس وقبر واقعا إلى هاي كادك ميانا درالك هاي رالي بانا هاي تري روايات كلنا وحو نبيكو كويري هوين آمس فاطماي اهل كيغا قفقا دي مشاهده يقصو حيقو هاديك آمس ويقويري ده نوان فرحي بيتري قف دي مشاهده يسي الله شاكو فرحي كورم انتو ديار قروبي قفقاس هشام بن عبد الملك أيا أوير أبو حازم يزيد الرقاشي وعود سؤال بنك ويدين يا شيخ ما لنا نكره الموت هذا نقول بقراء النهي ما عندي مشهد وكرهنا بيقول دي مشهد وكعب صناعي زمن كاس وتابع تابعينتي وقرونتي هرويا مدحض أمبا نرش أدوية جعليده عامنا مسلمين تؤخر ذيني تقابل جعلايين ما أنت الزمن كأننا هي فقير كأن قريقي سعاوة وحباء أن أولين إنه آخرتك ديار مويا فقير حتى قوت اليوم أن هيسن أدي هذا آخرة ديار موتا ما يبورن إنتين هالكافر المساجد كجوكت هذه هالك هذا ملك وسوتها كملك وإذا إنتين ناسيلا هاي رالي بينيجا نقضي الباب دي جنة نوالي نفري أيها وديار أي مكذا ينو قال هذه لنا كورما تحويلي أبو حازم بايدي واحد مشهد أوكر حيسان أنا أقول جوابي هاي الدوية أياد عمرتين وأذكر حسين
aakhiradiina waad iska kharribteen oo waad baabi'iseen marka daarta aad qurxisateen aad camirteen inaad ka tagtaan daar aanan waxba iniga dhisnayn oo niga baaba'san oo niga hallowsan inaad u guurtaan dee oggolaani maysaan buu ku yidhi dadku goormay aakhirada jeclaanayaan goormay la kulanka ilaahay jeclaanayaan waa marka dadka acmaali ka horrayso waa marka sahay ay ka horrayso abu dar baa odhan jiray saddex baan adduunyada ugu jecelahay dadkuna way karhaan dhimashada iyo faqriga iyo bugtaanta saddexdaa dadkoo dhan way dhibsadaan aniguna waan jecelahay buu yidhi maxaad la jeceshahay baa lagu yidhi oo waxaan la jecelahay faqriga waa tawaaduc buu yidhi tawaaduc baa laga helaa faqriga xanuunka waxaan la jecelahay waa dembi dhaaf kullamaa qofka mu'minku xanuunsadaba dembi baa laga dhaafaa dhimashadana waxaan la jecelahay maad garanaysaan buu yidhi maya noo sheeg la kulanka rabbigay baan jecelahay buu yidhi laana dadkaasi waxbay qadimteen iyagu maalintuu dhimanaya abu dar cidla cad buu keligii ku dhintay meesha ribda la yidhaah xaaskiisii buu u yeedhay isagoo sakaraada way ku dul oyday markaasuu ku yidhi naa maxaad la oyaysaa markaasay ku tidhi kaama maarmi karo kuma maydhi karo kuma aasi karo mara kafan kuu noqotona kuma hayo markaasuu ku yidhi dhegayso halkaa u bax tuurkaa u bax buu ka yidhi safar jamaaca mu'miniina soo mari doontee kuwaaba aniga i aasi doonee iigu yeedh buu ka yidhi markaasay ku tidhi xaggee dad aan ka arkaa bay tidhi xaggee dad ka soo maraan xilligan jidka xajigii xajka ka noqonayna uu go'ay haddee toole oo xajkiina mar horaa laga noqdee dadka dariiqa soo marayaad sheegaysa waa dadkee bay ku tidhi niyaa i dhegaysa buu yidhi koox anigu aan ka mid ahay annagoo maskiidka dhex fadhin oo xalaqad fadhina ayuu nebigu nagu soo baxo wuxuu yidhi mid baa iniga mida ininka keligii cidlo ku dhimani doona keligii buu cidlo ku dhimani doonaa aaskiisana jamaacad muslimiin oo mu'miniina ayaa ka qayb geli doonta raggii maalinta aan la fadhiyey nin kasta uu dhintay nin magaaluu ku dhintay nin tuuluu ku dhintay nin reerkiisiibuu ku dhintay ninka cidlada ku dhimanaya nebigu sheegay ee jamaacadda mu'miniintu aaskiisa ka qayb geli doonto waa anige ordoo tuurka u baxo jamaacaddii nebigu sheegay baa soo mari doontay igu yeedh buu ka yidhi bal sida hadalka nebiga u rumaysan yihiin dadkaas muslimiinta maanta adduunyada joogta iyo muslimiinta qarniga caalamka joogtay farqiga inoo dhexeeya waa yaqiin khabarka nebi maxamed ay ka maqleen ayay boqolkii boqol iyo ku rumaysnaayeen boqolkii boqol ninkii nebigu uu sheegay buu yidhi waa aniga ee cidlada ku dhimanaya raggii kaloo dhan way wada dhinteen tuule iyo magaalo iyo qaryad iyo reerkoogay ku dhinteen ninka cidlada ku dhimanaya waa anige jamaacaddu nebigu sheegayba aaskayga ka qayb geli doontee halkaa u baxo joogsa buu yidhi jamaacaddii baad arki doontaaye isaguna sankaraadkii baa haya tuurtaaba buur bay fuushaa xaggaa iyo xaggaa wax ka socday eegtaa haddana way soo noqotaa maradeeda intay qoysay madaxa u saartaa haddana way ku noqotaa siday u noqnoqonaysay bay aragtay jamaacad muslimiin oo dariiqa maraya maradeedii bay markaa sidaa u tidhi baa la dhisi markaa bay soo leexdeen haweenay bay arkeen buurta dul taagan waxay maxaa cidlada ku dhegay waxay tidhi saaxiba rasuulillaahi sal allahu alay wasalam nin nebi maxamed saaxiibkiiya ayaa cidladaa ku dhimanaya kaalayo ila aasa bay ku tidhi markaasay idhahdeen oo waayo waxay idhahdeen waxay tidhi waa abu dar alghifaariyi radia allahu canhu abu dar baa cidlo ku dhimanaye kaalayo ila aasa markaasay soo yaaceenay yidhahdeen nufdihi biaabaa'ina wa ummahaatina hooyooyinka iyo aabbahay ayaa ku furanaynaaye masaaxiba rasuulillahi baa cidlo ku dhimanaya markaasay abu dar oo sakaraada ugu yimaadeen markay dhulka ka soo qaadeen ee dhabta ay ku qabteen uu indhaha kala qaaday horta wuxuu ku yidhi bishaaraysta mu'miniin baa tiin oo nebiga ayna sii sheegay buu yidhi xadiiskii nebigu markii buu bishaareeyey ta kalena wuxuu yidhi dhegaysta laba qof oo muslimiina walaalkood ma dhinto hadday u sabraan oo aynan u ooyin oo ixtisaabna ilaahay ajar ka dalbaan oo u sabraan addoonkaasi naar ma arkee waa niga dhimanayaa maanta oo cidlaa ku dhimanaya nebigaa i sheegee hay ooyine iska sabr buu ku yidhi arrinka saddexaadee nii sheeg waxa weeyaan mara kafan igu filan haddaan haysto iyadaa kafan layga dhigi lahaa laakiin ma haysto xaaskayguna mara kafan igu filan hadday haysana maradaabaa kafan layga dhigi lahaa iyaduna ma haysatee idhegaysta walaalahayo raggiina meeshaa maraya dowladda islaamka nin u soo shaqeeya hadduu inagu jiro dharka uu sitaa
aniga kafan hayga dhigin buu kafan ugama baarin dharkaas wuxuu dhowrayaa xaaraantu ka dhowrayaa jirkiisa inay taabato diin buu wataa taqwad buu wataa iimaan buu wataa zaad buu wataa zaadka uu aakhira la tagaayo inuu ka boorooba ayuu diidan yahay innagana zamankan halkaan marayna waxaan ku cunin wala cunaa ilaa wax walba cunta Soomaali gaajadoon ba xaraana bay koodhanayaan gaajadoon ba xaraana kullu jismin nabata fil haram fan naru awla bihi